horta kadis bay ku noqotay laakiin waxaan isku dayay inaan wax ka xasuusto mataqaanaa mid aan ka tiriyey niyo bahasha Soomaalida ragaadisay qof dareemaya cudur waa taas cudurkan haya Soomaali maxaa ku dhacay ilaa wala iska wada fahmaya taasoo aan dhinacna uga yani kaga araaranay inay jiraan yani de yani shahna cid inoo dajisay iskama iman markaas wuxuu yiri qacda gabay rag baa loo qoro qeexi jiray waaye Qaasim iyo kuwii loo qayimay duunka laga qaadiy quldhayduna markii aan qabtaan quruxu yeelaayay in dhaweydna maan qorinta xoo waan ka qoos dhigay bal qorsheeya caawana halkan soo qotominaya qooni la isku qarka tuuray baan bayd ka qorayaa nin hore wuxuu qowl ku qiray ama se uu qeexay qof walba wuxuu qaban karaa loo qadimayaa qarniyadan dadkii nool runtii waa qatalan yihiin qalad fahanka diinta ay qaldeen qoon hore u lumay caruurta qulqulatadu heshee qalad wax loo sheegay oo lagu quflay soo qurgo adiga qoontaada yani halkaas waxaan kaga yara hadlaya dadka isqarxiy waxaas mataqaanaa inay yani diinta oo bildar sawir qaldan ka bixiyeen caruurta qulqulatadu heshee qalad wax loo sheegay ee lagu quflay soo qurgo adiga qoontaada qaatilnimo ka weyn baanan arag qowl anoo qarin qarxiyo islaam qoortago diintu may qorin islaamnimadii laga qayliyo way qaribayaan qaadirow adigu naga qaqabo kaaga qayshadaya afarta qontaydii horiyo qeyragelintii qalad dhacay waxaan soo arkiyo qoomamiyo ciil qaadan kalena waa midaan ku qiray qoonta sababteeda qabqablii dagaal baa qasoo quud ku raadsaday anaa kaa qabiil weynayaa qaran u weydaynay waa waxa qaxoontigu u galay sabanka qaarood oo waxa badaha loogu qubay dhalinyartii qaare quursi bay ku wada nool yihiin dalalka qaarkii qabyaaladnimay qool sudha ma laha khayraad qabri la isku naariyo dhibiyo qoomo maaxigii qiyaamaha markaa qaawantiin qiil ma helaysaan qaraarkiin waa quudariyo qumaca naareed haddaydan samaha qaadan iyo diinta quruxeeda oo aan la soo qaban dadka qowlka ku qama oo aan la soo qaban dadka diinta ku qaraabta walaa iga qarsoon waxa heshaan maalinta qiyaamo dee waan ka cudur daartay waxa qof walba wuxuu mas'uul ka yahay bulshada ma ogtahay waa inaad sheegtay taas ana exactly ana waa ka baxsan